بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa Cabdinaasir Daar Cilmi waxaan joogaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan runtii waxaan fikirkeyga ka dhiibanayaa qadiyada Soomaaliya dacwadda ka socoto maxkamadda ICJ dadka Soomaaliyeed nooc kasta ay ahaadaan qadiyadooda hadday noqoto badda iyo hadday noqoto dhulka intaba waa mid ka midaysan yihiin afkaarada yaryarka iyo fikrada kala duwan waxyaabaha dhexdeena siyaasadda la isku hayo waa noo gooni laakiin markay timaado waxyaabaha qadiyada waa mid loo wada duuban yahay maantay oo ah maalintii labaad la dhageysanayo dhanka Soomaaliya oo anaga ah waxaan rajaynaynaa in guushu iyo go'aanku dhankeena soo aado waxaan intaas oo sano ku haminaynaa aan gaarno dhaxalkii awooyaasheen ay nooga tageen marna ma yeelayno inay nus ama taako kamida ay qaadato ama dawlad Kenya ama dawlad Ethiopia midna ma ogolaan doono taas waxaan ka jirnaa inaan dhimano sidaa darteed waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeynayaa guusha noo muuqato inaan gaari doono waqtiyada soo socdo sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu baaqo guud ahaan meel walba ay joogaan isku duubnaadaan magaca iyo masabka Soomaaliyeedna kor loo qaado dhamaanteen aan isku dardaarano inaan guusheenu dhakeeno noqoto ducadana aan badino insha Allah oo ka guuleysan doonaa cid kasta ee si qalada nagu soo xadgudubto taaka kamid dhulkeena badeena iyo barigeena ma sii doono cidna sadaqa kama yeeri doono inay ku qaadato. Assalaamu calaykum.